بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ومحمد صالح. أستاذ محمد صالح هذا هورنا meelo badan aad ka dhegeysateen la socoteen youtube hore oo qabtay alaaba waxaan ka hadlaa dhalinyarada soomaalida waxbarashadooda iyo waalidka soomaalida waa inuu soomaali baan ahay waana dadkaygii oo aan ka danqanahay hore waxaan uga hadlay qaybo ay ka mid tahay waxaa ka mid ahaa caqabadaha haysta caruuraha da'da 15 to 19 safarada badan oo la galo iyo dhibaatada keento tuushinada aan loo baahnayn oo lacagta badan lagu bixinayo oo mararka qaarkood xataa silbus qaldan caruurta loo dhigayo qaar foundation oo higher tuition lacag lagu bixinayo waxaasoo dhan waxaa rajeynaya in waalid badani ay ka faa'iideysteen boontigaan rabo inaan ka hadlo aan ku daro maantay cajaladahayga hore aan hore u dubo waxaa weeye waxaa jira dhalinyaro soomaaliya oo da'dooda ay tahay kasoo qaad say 17 to 21 groupkaas waxaan qiyaasi karaa gabdhaha eedkaasa badankoodu markay gaaraan dhowr iyo 20 dad waxbarta waaye dad shaqaysa waaye dad isku filan bay noqon doonaan iyagoo waxistara dadkoodana waxtara qolada muhiimka ah marka oo halkaa u badan waa wiilasha marka saddex qodob baan rabaa inaan wax ka imaado qodob waxa waaye dhalinyaradaas da'daasoo 19 20 21 iyo da'daasa kow waxaa la yidhahdaa luqadahay ku hadla amshuur inaan luqad soomaali ku hadlin qaladkana innaga iskale hooyooyinka iskale communityga iskale waxaa la yidhahdaa luqaddu waa lafdhabarta waa geedka jiridiisa weeyo luqaddu geedka jiridiisa marka inaga jiriddaasa ina ka maqan alaa kulli xaal mas-uuliyaddana inagoo dhan baa qaadanayna iyo wixii santara haysta iyo wixii awood u leh oo ka sacday baa qaadanaya ay waalidka ugu horeeyaan waayo are you Somali? Yes. Do you speak Somali? No. halkaasi maraysaa qoladaas waxaa laga qayliyey luqadaha xataa ay ku hadlaan inaanay sentani saxa isku xiri karin inaga waxay noo dheer gurigina ingiriis lagama hadlo caruurteenina waxay ballaan islaamkii waxa la yidhaahdo dhallinyaradeenni oo ah ereygii waa la soo gaabinaya tusaale ahaan soomaaliya haddaan ku oran lahaa hooyo quraac baan raba kasoo quraac buu leeyahay kasoo tusaale ahaan ingiriis nalka dami al erey buu sheegaya marka islaamkigaas waa ijtimaaciga bulshada eedka lagu hadlo academic maaha taas maxay keentay markii academic laga hadlayo GCSE laga hadlayo A level laga hadlayo university laga hadlayo caruurtii inay qoritaanka ku adkaan waayo vocabulary-na ma hayno luqadeeni ma naqaan oo aan ku fahmayna wax tii aan baranena wax isku xiran kumana hadalno mana qorno arrintaa dhib bay keentay taas waa mid waxay kaloo taasi keentay inaanay xaqoodi raadsan karin inaanay sharciga waddanka wax ka baran inaanay joornaaladii dadka xaq waxaa la yidhahdaa waddan kasta waxaa jira jaraa'idyo ka soo baxa jaraa'idadaas waxaa qora dadka waddanka xakuma waxaan akhristaa dadka hayl academica ingiriiska oo kale waxaa lagula taliyaa wiilasha oo kale kula taliya inay akhriyaan the guardian the times telegraph daily mail joornaaladaas garanaysa ayay rusaarayaashii wax ku qora professora wax ku qora tabloids waa garanaysaa kuwa iska loo dalka marka halkaas warwar badan baa ka jira maxkamada iskama difaaci karaan booliiska iskama celin karaan xaqoodii ma garanayaan way iska aamusan yihiin embarrassmentay ka cararayaan way xishoonayaan wax kasta yes bay leeyihiin waayo gurigaan ku baran hadli taasoo baran markaasaa 15 sano 20 sano waxaa laga yaabaa xataa wixii garanaysaa xaqiisii baanu doonan karin haddii qof aamusana cid xaq u dooni mayso maxaa talaa marka bointigaas markaan marayo waxaa tala abointiga markaa marayo fasaxyada bliis dhalinyaradaas aan sheegay ilaa 25 ka yar ilaa 27 inta udhexaysa 25 ilaa 8 udhexaysa bliis sentaro ha loo ijaaro booliiska ha loo socodsumo looyaro ha loo lacag laga bixiyo ha loo yeero sharciga waddamada ha la baro xuquuqdooda ha la baro maskaxdooda ha la dhiso dadka radically citizen ma noqonayaan maalinkaas dambay gelayaan they don't know what they doing inagana raashin karayaan siina arrintaa weli malada
haddii kaleto dad badan baa ku dhammaanaya dhulkan ognahay waan ogtay macna samaynaysa ay istaan haddaanu oran karin yes no haddaanu oran karin sharciga noocaasa qodobka noocaas waa saas qodobka noocaas waa saas wax kasta adduunka maanta qoran lakin waruma hayno inagu maynaa barin waddanka adduunka waruma hayno soomaaliyana si kala noogu dhaqmayo I'm very worried aad baa arrintaas warwar bay ugu haysa arrintaas gaydkina waa insiiye waxa weeye lacag inaan gelino weeye inay garan karaan haddii lagu qabsado haddii lagu qabsado haddii lagu qabsado haddii lagu qabsado wax kastaa dhici kara looyar baad leedahay sharcigaasaa jira sharciga hagee lagu ogaanayaa xuquuqdaadu maxay tahay maaha inaad tiraahdo anugaygu xaafid quraan ee ay star wataa ari socdo waay bada ay sheega aniga waa inuu og yahay waddankuu joogo waa inuu og yahay luqadaha lagu hadlo waa inuu og yahay xaq wixii u leeyahay waa inuu og yahay xaq waxa looga leeyahay waa inuu authorityga sharciga qaybta inaga laka rabo waa inaan raacnaa weye maxaa lagu haystaa teenage Soomaali lagu haystaa ugu badan lagu xiraa they are against authority xukunkii waddankii baan ka horjeednaa soomaaliduna authority kuma fiicnaba waddankeena waxaasaan ogtiin authority diid baan nahay halkaana maxay keentay waxaan ku bilaabaynaa subaxda markuu baxayo macalinkaasi kuma jecla boolisku waa ku xiraya bilaa kugu dhacaysa carruurteedu dagaal bay ku jira waa cabsanaya maxaad u cabsanaysaa waddankaad degan tahay sharciga ku leedahay cidi kaama xigto ra-iisul wasaaraha waddan degani xakumahay kaama xigo waayo mustaqbalkii waddankaasaa tahay waxbaad u baranaysaa beri lawyer baa noqonaysaa beri macalin baa noqonaysaa beri professor baa noqonaysaa beri mb baa noqonaysaa weliba muslim baa tahay dad badan baa ku ficnaa doontaa yaa kaa xiga laakiin yaa u diyaarinayo mentaalitigaas ma hayno aabayaal baa loo baahan yahay leaders baa loo baahan yahay culimaa loo baahan yahay community leaders baa loo baahan yahay ehel iyo abtiyo adeer baa loo baahan yahay maalgelin baa loo baahan yahay qodobka warkaas qodobka ku xiga dhalinyarada eedkaasaan soo sheegay in ka badan oo ka mid ahay qaar Soomaaliya loo kacay 20 baa lagu soo celiyey shahaadooyin ma haystaan GCSE maanay samayn meel cidla bay taagan yihiin qaarkoodna waxbarashadii baa ku adkaatay caawinaadii la raba ma helin 20 buu jiraa waxba faro kuma hayo halkaasuu taagan yahay xabsigu khatar ugu jiraa shaqo la'aan baa haysa lacagna waa u baahan yahay maxaa qorshe ah waxa qorshe iga ah inagu walaalayaalo waxaan leenahay wiilkaygu haddaanu injineer ahayn wiilkaygu haddaanu dhakhtar ahayn lama jecla isna wuxuu ku leeyahay I'm not enough walaal injineer dhakhtar noo baahna qofku inuu muslim yahay weeye qofku waa inuu wax kala garanayo qofku waa inuu xalaal iyo xaraan kala garanayo qofku waa inuu culture leeyahay qofku waa inuu dhaqan leeyahay qofku waa inuu identity leeyahay qofku waa inuu shaqaysan karaa xalaal marka si ugu diyaarna shaqo lacag hala geliyo plumbing bay baran karaan electric bay baran karaan mechanic bay baran karaan security bay baran karaan driverless bay noqon karaan shaqay ku helayaan laakiin ma ay aanu shilmaadkan la Soomaaliya u diraayo ma awoodo wiilo dawladda dawlad maxay ku leedahay adil 20 baa jirta waqti waxbarashada soo dhaafay hadba ku leeyahay very sorry no more maalgelin baan u baahanahay badda la soo qaato 10,000 saar human value human investment adduunka waxa la invest gareeyo lacag waxbarashada qiimaha badan waxa la yiraahdaa qorshaagu hadduu yahay sanad bariis baa la beertaa 10 sano hadduu yahay cambaa la beertaa forever hadduu yahayna dadkaa wax la baro waxbarashadu maaha jaamacada keliya maaha waxaa kaloo la yidhaahdaa hantidu waa 3 kasoo reference waxa ka ah article aqrinayay waa 3 hanti ku taal hanti kula taal hanti kugu taal hanti ku taal waa ilaahay dartii waxaad u bixiso hanti kula taal waa waxa muuqda leedahay hanti kugu taal waa aqoonta leedahay farsamaduna hadda aan ka sheekaynayo mihnadu waa waxa adduunka maanta kaash la yahay dhalinyarada guryaha fadhiya 20 jirada ah lacag hal geliyo ku shaqo tagaan bari markuu guursado jaamacad saagin doon qodob waa taa pointiga xiga pointiga ku xiga oo la socda waxa weeye social skills dhalinyaradan wax bartay 20 jirada ah 23 jirada ah qaar dhaqaatiirta yihiin qaar macallimiinta yihiin qaar jaamacadaha hadda ku jiraan qaarkood iminka Soomaaliya markii la geeyo sidii 10 jir baa loola dhaqmaa ma qubaysatay ma rumaysatay waxa laga sheegay hooyo isbishaan isbaa maxaa ku dhacay
Do you know why? waalidkii waxay u haystaan in qolada social service ku daaqadaha ka eegayaan child protection bay ka fikirayaan maya ma ka daa intaa way ka fiican yihiin holidayga markaad aadayso telefoon sii dir meesha u socoto waa garanaysaa waxaad tidhaahdaa 3 injineer baan soo wadaa 2 neersi baan soo wadaa dhakhtar baan soo wadaa ku shaqaysta 6 wiil haddoo kale dad baa baxaya abaaraa jira biyaha buut laga baan qabtaabeenuud kaba buuda hadda ha loo gado jiinis ha loo gado reerka ha dhaamiyeen baabuurta biyaha ha kaxayaan baadiyaa ha tagaan ayeeyo iyo adeer ha u dhaamiyaan bariiska ha kariyaan nolosha ha bartaan dadkooda waxa taraan iyaguna khibrada soo qaataan iyagoo dadaason laakiin intaa had Soomaali geyso hotel dejiso ugu fiican aad tiraahdo ma cunaan disable baan ka dhignay inaga mas'uulka ah ummadda waxaa la yidhaahdaa dhul burburay waa dhisi karaa qulub burburtay lama dhisi karo dad burburay lama dhisi karo haddaynan carruurteena qaadin dadkeena haddaynan caqliga qalbiga ka qaadin muslim baa tihiin taalanti baa tihiin dalkaasaa leedihiin soomaali baa tihiin taalan faham baa idin siiyey diintaa barataan sharci baa ilaahay idiin fududay إلهي القرآن كل شيء وأتاك وحي إلهي القرآن كمعين إلهي وعلا واحد وين بسابق يسيب ما عندك inferiority محاكي والله يعين شيء وعقب الله يجري وأبأي وهوجي والله ينعبي هاي أنا مسلم بان هاي ما كجرنا إنه وأبص واحد أي ستار بان وضعنا هاي ما إنا إيه جوكم بل رداسنا على وش على الشقية كل واحد برتي بلاتفورمز بيوبايين كل جوجا عم بيحينا وإن سنتر الله جاره وإن كومونتي لا كيرو وإن الجرجيت يعني قبلها سوكراي وإن عفات كل شيء يعني معلمين وإن رجع معلمين كل شيء يعني لكن أنا واحد برتاح دار ده قولوا جوجا ما هذا وصوش قيستا كومونتي وحبكم سوكر ديو خسارة عبانا no contribution لما تصل على بس عطي أنت صوت عضو كبحي أنت صوت وش بعض قبطي ما أنت كومونتي كيسو حامل ترين ماسك في مركال كان حوي dhalinyarada Soomaalida idinka u sheegi doona luqadda rabtaan idinka garanay u sheegaysa ko carruurta Soomaalida oo hadda soo qaan gaaray oo 20 dhaafay si kuraas badan bay magacooda ku qoran yahay maxaa kamid ah reerkay ka dhasheen meel kastuu joogo waa ku xisaabtamayaan wiilka iyagii gabadha iyadii kursi baa uga bannaan community-ga Soomaalida uu la degan yahay kursi baa uga bannaan community-ga muslimiinta kursi baa uga bannaan dadka uu la degan yahay kursi baa uga bannaan waddanka waxbaray oo sharciga ka haystana kursi baa uga bannaan hooyooyinkana sidoo kale idinka kuraas badan baa idin bannaan raggana 100 kursi u bannaan dumarku kuraasta qayb bay bixin already kursiga hooyanima ku bannaan kursiga hooyo muslima ku bannaan kursiga hooyo macallimada ku bannaan kursiga ma la tirin karo qaybaa dhiman wali kursigiina wax barataa ku muslimiinteena caawintaa ku sii bannaan laakiin ragga 70 baa u bannaan raggi waa maqan yihiin shaqa laga rabaa aabbaha dhegaysan doonow kursigii nin ragaa ku bannaan reerkiina kursigii xaaskaagaa ku bannaan kursigii carruurtaada ku bannaan kursigii tolkaabaa ku bannaan kursigii soomaalibaa ku bannaan kursigii muslimiintaa ku bannaan kursigii waddanka sharciga ku siiyaa ku bannaan where are we waa joogna haddana ma joogno waan noolnay haddana ma noolin waxnaan haddana ma nihin waa inaa isdib isu raadinaa weeye meesha muhiimka la iska qaadayo waxa weeye waa inaad dib isu doonnaa who are we carruurta guryaha jooga gabdhaha quruxda badanaa qabtaan idinkaa mas-uulka ah amaan be amaan rijaal marka laga hadlayo qof kasta maaha awish waxaan rajaynayaa dumarow cajiladahaygaa dumar baa dhegaysta cajiladan raggeena inaa ay dhegaystaan baa dhegaystaan muhiim walaalow gabadhi shalay aaway lagu soo siiyo quruxda badnayd le carruuray la wareegaysaa kaligid baa socota mid baa dhexda ku daahay mid baa iskool ku daahay mid baa tuushin ku daahay mid baa dhakhtar u baahan dad kala caawinaya weeraariyo su'aasha rag baa laga rabaa inay ka jawaabaan ma waddankaa joogta ma hurudaa ma habeen baa shaqaysaa ma mb baa tahay ma generaal baa tahay ma fadhi ku dirir baa joogtaa ma jiratay
عريان بانو تمنى ولا بويتي وقصنا من مرلبا أنا يردي سبعة قراءة شيء حول بالله بعيان برنامج كنا قبل دونا إن شاء الله اسم الله يراهدو لأن يردي حلو دونا حلو دونا وحكلو قبل دونا برنامج إن شاء الله يراهدو لأن يرد نحمر يبودين إلا ذا وعلى رأسهم إذا أنا رأسهم يدبات هذا كل عذا يجوا ستار وطه جامعة ماشي جلها حفص جليان لا يحكي بريان إنه ورت وهي خيرة آخر أجر هناك بكسيو بتكلم كذا محرجين إن شاء الله إيه واحد كفى إذا سيد ويلش عن الشيء أنا قبل يعني إلا ولا قبلها ويلش ويكدوهن قبله هو emotional قبله مهلان دمروا قبلها لشيء كيستا هأورنينا موبايل قرب بدن ماسيين هأوران أيضا العقيدة هيستا درين كودا لا صعدا فين كودا لا صعدا رجو وخصدا emotion كيسا رجو بلايك الكوكريا قبله ما حمل كلام وليبا قبلها هيك وكلا تبغى قبلها كيك وصوكرا قبلها على الكهوين كان على يلجوه قلبي جوده ما بسمع يدعو دجيو إن قبلها إلهي قرآن تقول شيء فيه وعلى هذا لئن شكرتم لأزيدنكم قولي باشن عرجوه أفرق رجوي ده أبرتوا على ده ويل كمان لوري مركز سي عروض كده نفس كل قريسة مركز عليهم وأنا في عن محمد وأنا أحسنت هاي فير ما هو لا أفكست عمران لا يمشي أقرب يرى لها وحاول نفتح شيء شاكله أنت صار نفتح كسو قبليه وحنجين يا إلهي إن وفعه نوافعه وحنجين إن نقطعني منكم قوة دقيسته ووحف في عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برلبات أو هالكي محمد صالح وأستاذ سكندري كان يوكي لستر وحكدقة خير بان يرجيني سؤال بان دي كرتا ونيو maxaan naga helaysaa anigu yaa ku soo dirsaday cidii idinma soo dirin anigu walaalkiin baan ahay anigu abtigiin baan ahay anigu aqoonyahankiini baan ahay anigu Soomaali baan idin lahay xaq badan baad leedihiin in aqoonta laydina qaybsado in laydin soo gudbiyo rag badan baa seexday laakiin ogaada in rag fiican jiraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.